ka hor intaanan bilaabin muuqaalka waxaan rabaa inaad ogaato inaan ku hayo wax cajiib ah saaxiibkay. Waxaan ku dhaaranayaa inaad arki doonto heer cusub oo yaab leh. Laakiin waxaan rabaa inaad si fiican diiradda u saarto bilowga si aad sheekada si dhab ah ugu raaxaysato. Haye aan bilowno. Sanado ka hor waxaa jiray askari dhex maraya magaalo burburtay. Wuxuu la kulmay nin da weyn oo geeyay meel meydad badan yaalaan. Dabcan wiilka yari wuu cabsaday, markaas ayuu dagaalyahankii weynaa ku yidhi: "Ma aragtaa meydadkan oo dhan? 7 qof ayaa dilay, magacyadooduna waa 7 dembi ee waaweyn. Haddii aad weligaa maqasho inay meel kuu dhow joogaan, carar." Isla waqtigaas waxaa jiray wiil yar oo ka shaqaynayay maqaaxi, kuna noolaa nolol fudud. Wuxuu lahaa wax wanaagsan, laakiin cuntadiisu aad bay u xumayd saaxiibkay. Wuxuu lahaa doofaar ku hadli kara si la mid ah bini'aadamka, magaciisuna waa Hoog. Doofaarkan ayaa nadiifin jiray cuntada dhulka ku dhacda inta uu fadhiyo maqaaxida. Maalin ayuu maqlay macaamiisha oo ka hadlaya 7 dembi ee waaweyn. Waxay sheegeen inay shar yihiin, inay si arxan darro ah u dileen fardoolay quduus ah, ayna dhammaantood yihiin bahalo. Laakiin midka ugu cabsi badan waa hogaamiyahooda, Meliodas. Xusuuso magacaas sababtoo ah mar dambe ayaan u baahan doonaa saaxiibkay. Si kastaba hadalkaasi wuxuu soo jiitay dareenka milkiilaha maqaaxida sidii qof arrintaas wax ka og. Isla markiiba qof argagaxsan ayaa soo galay isagoo ka baqaya wax dibadda ka jira, wuxuuna ku yidhi: "Waxaa bannaanka jooga fardoolay xiran gaashaan bir ah oo wareegaya isagoo weydiinaya 7 dembi ee waaweyn, wuxuuna u muuqdaa inuu ka mid yahay." Laakiin dadku ma rumaysan. Ma rumaysan kartaa? Waxay yidhaahdeen waxay maqnaayeen hal eber sano, waqtigoodiina waa dhammaaday. Laakiin si kedis ah albaabkii jidka yar ayaa furmay. Fardooleygii ayaa hortooda ka soo muuqday. Qof kasta oo jidka joogay wuu baqay wuuna cararay, marka laga reebo wiilkan yar oo u soo orday fardoolayga kuna yidhi: "Yaa baad raadinaysaa?" Intaanu hadalka dhammayn, fardooleygii dhulka ayuu ku dhacay, waxaana laga qaaday maaskarkiisii. Waxaa ka soo muuqday weji qurux badan. "Ma dhib baad rabtaa inaad keento saaxiibkay?" Milkiilihii maqaaxida ayaa gudaha geeyey oo daweeyey. Wax yar kadib ayuu cunto u geeyey. Sida caadiga ahayd gabadhu way adkayd, laakiin way ooyeysay sababtoo ah ugu dambayn qof ayaa cunto siiyey. Wuxuu weydiiyey: "Yaa baad raadinaysaa? Maxaadse sidan ugu labisan tahay?" Waxay ugu jawaabtay: "Waxaan raadinayaa dembiyada. 7 weli lama helin." Waxaana isla waqtigaas la garaacay albaabka Hana. Askarta magaalada ayaa timid si ay u qabtaan fardoolayga birta ah. Hana ayaa bannaanka u baxday, waxayna Hoog ku amartay inuu xirto gaashaanka oo iska dhigo fardoolayga, laakiin askartu ma khiyaamin. Intaanay hadalka dhammayn, gabadhii ayaa guriga Hana ka baxsatay iyadoo u cararaysa dhanka keynta. Markii askartu arkeen gabadha, way daba ordeen. Si kedis ah Hoog ayaa gadaashooda ka soo baxay, isagoo mid mid u garaacaya, ninkii ugu dambeeyeyna geela ayuu ka tuuray oo hawada ku ganay. Laakiin wiilkii ka yimid maqaaxida Hana isaguna gabadha ayuu daba socday si uu uga ilaaliyo inay dhacdo. Markii dambe ayuu weydiiyey: "Maxaad u raadinaysaa 7 dembi ee waaweyn?" Gabadhii waxay ku jawaabtay: "Fardoolayaasha quduuska ah ayaa waqti ka hor weeraray boqorka. Haddii uu jiro qof ka hortegi kara fardoolayaasha quduuska ah, waa 7 dembi ee waaweyn." Wiilkii ayaa ku yidhi: "Laakiin dadku waxay yidhaahdaan waa shar wadayaal, xitaa way ku dili karaan." Gabadhu waxay ugu jawaabtay: "Maya, sidaas ma aha. Aabbahay mar walba wuu ii sheegi jiray sheekadooda, waxaana hubaa inay iyagu yihiin dhibanayaal, wax ka badan ma aha." Intii ay hadalka waday, si kedis ah ayaa seef hawada ka soo dhacday oo goysay goobtii ay joogeen. Dhammaantood dhulka ayay isu tuureen. Waxaa soo baxday inuu yahay fardoolay quduus ah oo yimid si uu u dilo fardoolayga birta ah. Laakiin ma waxaad moodaysaa inay si fudud u dhimanayaan? Maya saaxiibkay. Wiilkii ayaa badbaadiyey askarigii hore loo garaacay, wuxuuna daweeyey dhaawacyadii. Fardoolaygii aad buu ula yaabay. Kadib ayuu si fiican u eegay si uu ogaado qofka ugu xoogga badan. Markaas ayuu arkay silsiladda gabadha qoorteeda ku xirnayd, wuxuuna garowsaday inay tahay amiirad Elizabeth. Maalin nasiib badan ayay u ahayd. "Diyaar garow, waad dhimanaysaa." Gabadhu way carartay. Fardoolaygii ayaa awooddiisa oo dhan ku weeraray, laakiin wiilkii ayaa gaaray ka hor inta aanay waxyeello soo gaarin. Elizabeth ayaa isku dayday inay isdhiibto si saaxiibkeed u baxsado, laakiin fardoolaygii mar kale ayuu ku dhuftay. Markaas ayay gabadhii ilmaysay iyadoo leh: "Waxaan u baxay raadinta 7 dembi ee waaweyn. Weligay safar keligay ah ma gelin. Waxaan xirtay gaashaan weyn si aan u qariyo aqoonsigayga. Dadka oo dhan si xun ayay iila dhaqmeen marka laga reebo adiga. Inkastoo waxaas oo dhan dhaceen, haddana weli waad i difaacaysaa." Kadib waxay tidhi: "Weli magacaaga ma aqaan." Wiilkii ayaa ugu jawaabay: "Magacaygu waa Meliodas." Gabadhii way naxday. Ma rumaysan karin inuu dhab ahaan yahay isaga. Askarigii Meliodas hore u qabtay ayaa markaas miyirsaday, wuxuuna yidhi: "Been ha sheegin. Waxaan arkay calaamadda garabkiisa saaran. Waa kan ugu khatarta badan dhammaantood." Markaas fardoolaygii ayaa weerar kale qaaday. Laakiin ugu dambayn isaga ayaa dhaawacmay. "Sidee taasi ku dhacday?" "Waan hubaa inaan si xoog leh u dhuftay," ayuu yidhi isagoo Meliodas si fiican u eegaya. Markaas ayuu garowsaday qofka uu yahay. "Sidee taasi suurtagal u tahay? 10 sano gudahood waxba iskama aadan beddelin." Meliodas ayaa ugu jawaabay: "Ugu dambayn waad i aqoonsatay." Elizabeth aad bay u faraxsanayd sababtoo ah ugu dambayn waxay heshay mid ka mid ah 7 dembi ee waaweyn. Waxay xasuusatay wixii hore u dhacay markii ilaalada boqortooyadu weerareen boqorka si ay u xidhaan. Waxay sidoo kale xasuusatay boqorkii oo ku leh: "Carar oo raadsa dembiyada, sababtoo ah iyaga keliya ayaa badbaadin kara boqortooyada."
wakhtigaas aad bay u murugaysanayd laakiin meliyoodaas ayaa u yimid dhar cusubna u keenay kana caawiyey inay xidhato kadib wuxuu geeyey magaalada berniya oo caan ku ah geedaha daawada ugu fiican ee casiirka laga sameeyo dhirtaasi waxay ka baxdaa hareeraha webiyada biyo macaan leh markii ay halkaas gaareen waxay ogaadeen in webiyadii oo dhan qalaleen xitaa dhibic biyo ah ma jirin kadib waxay arkeen dad badan oo meel isugu soo baxay markii ay u tageen waxay ogaadeen in fardooley quduus ahi seeftiisa ku muday magaalada sababtoo ah ma jeclayn casiirkooda sidaas darteed seeftu waxay joojisay biyihii webiyada iyo meel kasta oo kale mari lahaa dadkii magaalada oo dhan ayaa isku dayayay inay seefta soo saaraan laakiin cidina ma dhaqaajin karin markaasi kedis ah ayuu u yimid wiil yar oo la yidhaahdo miido waxaa soo baxday inuu isagu sabab u ahaa khilaafkii dhex maray isaga iyo fardooleyga taasi waxay keentay in dadka tuulada oo dhan ka cadhoodaan waxay bilaabeen inay dhagxaan ku tuuraan laakiin meliyoodaas ayaa qabtay wiilka oo kaxeeyey kana geeyey maqaaxida dhanka kale elizabeth waxay la joogtay duqa magaalada iyadoo weydiinaysa waxa dhacay wakhtigaas miido ayaa cunto karinayay qof ayaa weydiiyey sababta dadka tuuladu sidaas ugu dhaqmeen markaas ayuu ogaaday in markii fardooleygu yidhi casiirka tuuladu xun yahay uu xanaaqay wuxuuna cayayaan ku riday koobkii casiirka sidaas darteed fardooleygu wuxuu sameeyey wixii uu sameeyey kadib elizabeth ayaa timid miido wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo noloshiisa wuxuu yidhi waxaan la noolaa hooyaday iyo aabbahay aad ayaan u faraxsanaa laakiin markii bahal nagu soo weeraray way dhinteen dadka tuuladani ayaa i koriyey waxay ii caawiyeen sidii inaan ka mid ahaa qoyskooda weligood si ka duwan iima ayaan ula dhaqmin laakiin mar walba waxaan dareemi jiray kelinimo sidii inaanan dhab ahaan uga tirsanayn qoys walba dhibaato ayuu leeyahay sidaas darteed waxaan caado ka dhigtay inaan been sheego ama dadka wax ku mashquuliyo si qof uun ii dhegaysto meliyoodaas ayaa ku yidhi taasi ma sababtaad cayayaanka ugu riday casiirka fardooleyga miido ayaa ugu jawaabay maya casiirkaas tuulada oo dhan ayaa dadaal badan ku bixisay markii aan arkay isaga oo aflagaadaynaya dadaalkooda iyo casiirkooda ayaan xanaaqay markaas ayaan sameeyey meliyoodaas ayaa saamayn ku yeeshay hadalkaas laakiin si kedis ah ayay qaylo uga maqleen gudaha tuulada waxay ogaadeen in fardooleygii quduuska ahaa uu soo diray 2 askari waxay dadka ugu hanjabeen haddii seeftu qorax dhaca ka hor soo noqon weydo anshuuraha magaalada waa la kordhin doonaa ama dhammaantiin waa la dili doonaa dadkii magaalada aad bay u cadhoodeen laakiin ma jirin cid garanaysay waxaa la sameeyo markaas miido ayaa qaaday seeftii wuxuuna isku dayay inuu kor u qaado dadka tuulada oo dhan aad bay ula yaabeen geesinimadiisa waxayna bilaabeen inay caawiyaan askarigii fardooleyda ahaa ayaa meel fadhiyey oo dadka ku qoslayay isagoo leh dadkaas ma awoodaan inay wax beddelaan laakiin meliyoodaas ma uusan iska aamusin wuxuu u soo baxay si toos ah sida libaax hal gacan ayuu ku qaaday seeftii oo dhan dadka tuulada aad bay u naxeen markaas biyihii webiyada ayaa dib u soo laabtay magaalada oo dhan way faraxday habeenkii dadkii waxay sameeyeen xaflad weyn oo ay ku cabayaan casiirka tuulada laakiin askartii fardooleyda waxay u tageen sarkaalkoodii oo u sheegeen wixii dhacay waxay ku yidhaahdeen qof ayaa soo saaray seeftii waxayna u eg tahay inuu ahaa wiil yar fardooleygii ayaa si deggan u yidhi haye wuxuu qaatay warankiisii wuxuuna u baxay bannaanka magaca fardooleygaas wuxuu ahaa gal wuxuu weydiiyey askari ii sheeg masaafada tuulada iyo jihada ay ku taal markii loo sheegay ayuu yidhi haye wuxuu tuuray warankiisii isagoo xooggiisa oo dhan adeegsanaya meliyoodaas ayaa dareemay waranka oo soo socda wuxuuna u baxay bannaanka si uu u qabto elizabeth waxay bannaanka taagnayd waxayna dareemaysay inaysan waxba ka qaban karin laakiin ninkii la socday ayaa ku yidhi ha welwelin wax walba way hagaagi doonaan meliyoodaas wuxuu diiradda saaray warankii ayaa burburiyey dhismayaal badan laakiin meliyoodaas ayaa wareejiyey jirkiisa oo ka badbaaday kadib ayuu qabtay oo dib ugu tuuray fardooleygii ayaa yaabay markaas ayuu xaqiijiyey in meliyoodaas uu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee dembiyada wuxuu isku diyaariyey dagaal laakiin meliyoodaas wuxuu ka codsaday inuu ka fogaado magaalada si dadka aan waxyeello u gaarin waxay u dhaqaaqeen dhanka kaynta riyooyinka halkaas ayay u malaynayeen in mid ka mid ah dembiyada uu joogo waxay ahayd meel qiiq iyo ceeryaamo leh idina si fudud uguma socon karto markii ay socdeen ayay maqleen cod leh ka bax kayntan haddii aad rabto inaad noolaato si kedis ah kadib waxay maqleen koox boorar ah oo meel u dhow ka soo baxaya dhammaantood way naxeen laakiin meliyoodaas ayaa si degdeg ah u dhaqaaqay oo hal mar wada garaacay markaas xayawaano kale oo waaweyn oo ka yimid elizabeth ayaa soo baxay iyagoo isku dayaya inay cabsi geliyaan laakiin meliyoodaas ayaa si fudud mid u jebiyey xayawaanadii ayaa markaas dib ugu noqday qaabkoodii dhabta ahaa waxayna u ordeen gabadh huruday gudaha kaynta waxay ku yidhaahdeen ka carar fardooley quduus ah ayaa yimid gabadhu way soo toostay waxay ahayd gabadh la yidhaahdo dayana oo ka mid ah 7 dembi ee waaweyn markii ay ogaaday in meliyoodaas uu safar kula jiro elizabeth ayay raacday si kedis ah onkod ayaa kala jaray hadalkooda waxaana hortooda ka soo degay nin kale qofna ma dhaqaaqin waxay ahayd fardooley kale oo u yimid inuu dhammeeyo dembiyada wuxuu si geesinimo leh u yidhi diyaar u noqda dhammaantiin waad dhiman doontaan elizabeth waxay isku dayday inay ka hadasho oo ay ka dhaadhiciso inaysan dilin meliyoodaas
laakiin ninkaas wuxuu rabay aargoosi keliya. waxaa la ogaaday inuu yahay wiilka fardoolay quduus ah oo lagu eedeeyey inuu dilay dembiyada. elizabeth waxay isku dayday inay difaacdo meliyoodas, laakiin ninkii ayaa si degdeg ah u weeraray oo dib u tuuray. dagaalku wuu bilowday. meliyoodas iyo ninkaas ayaa isku dhacay si xoog leh, laakiin ninka kale wuxuu u muuqday mid ka xoog badan oo si fudud u garaacayay. meliyoodas wuu dhacay. markaas ayuu mar kale kacay, laakiin ninkii ayaa si ka daran u garaacay ilaa uu dhiig baxay. meliyoodas wuxuu u ekaaday qof dhimanaya. ninkii wuxuu u sheegay meesha ay dembiyadu ku sugan yihiin. wuxuu u maleeyey inuu helay jawaabtii ugu dambaysay, laakiin meliyoodas si lama filaan ah ayuu u kacay isagoo aan waxba ka muuqan. wuxuu yidhi, waxaan helay wixii aan rabay, nabadgelyo. markaas ayuu iska dhaqaaqay. ninkii aad buu u xanaaqay oo weerar kale ayuu qaaday, laakiin meliyoodas si xirfad leh ayuu uga dhuuntay. dagaalku wuu sii socday. dagaalkii meliyoodas iyo fardooleygii wuu sii kululaaday. dayaana si kadis ah ayay gadaal ugu soo baxday, gacanta ayay ku qabatay kadibna hawada ayay u tuurtay. halkaas meliyoodas ayaa macsalaameynayay. kadib kooxda waxay sii wateen raadinta xubnaha kale ee 7 dembi ee waaweyn. qaybta xigta haddii aad doonayso inaan idiin soo dhigo, fadlan muuqaalkan gaarsii 2000 oo like ah.